salaanka bacdi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadle oo na waafajiyey guusha maanta ciidanku ay soo hooyeen iyo guud ahaan dadka deegaankan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xaqsoor, annaga iyo daalimiintaas isku miisaan nama saaraayo, oo waxaa xaqiiqo ah nasriga inta wanaagsan oo khayrka iyo barwaaqada iyo ummaddan badbaadadeeda inta ka shaqaynaysaa nasriga iska leh. boqco walba oo cadowga uu ku sugan yahay, dhibaatada uu ku hayo shacabka Soomaaliyeed waa la ogyahay. taasna waxaa keenay in dadka Soomaaliyeed ay ogolaadeen in dulmiga lagu dulhaayo oo korkooda dulmi lagu falo. laakiin haddeer waayahan dambe dadka Soomaaliyeed waxay garwaaqsadeen dulmigan haddaan la iska qaadin ilaahay roobkiisa xataa inaan la helin. ilaahay meel la isku dulminayo dad dulminayo uma naxariisto. waa tii xadiidku ahaa dulmi haddaa aragtiin gacantiina ku zuuliya. waajibka koowaad uu ahaa Soomaali hadda waxay u soo jeesatay inay dulmigii iska zuuliso deegaan walba oo ay joogto. cadowga lala diriraayo waa cadow naxariis darro heer uu ka gaaray quraashada iyo shimbiraha iyo xayawaanka iyo bahaa'inta wax allaal wixii nool ayaa ceelkan biyaha ka cabaya. wuxuu ka shaqaynayaa subax walba siduu ceelkan u qarxin lahaa, siduu ceelkan u dumin lahaa. waxay ku tusaysaa wax nool oo dhan ilaahay intii abuurtay oo dhan inay la diriirsan yihiin. wuxuu ka shaqaynayaa laamigaas qof walba oo bani aadan ah, qofka waayeelka ah, haweenka uurka leh oo magaalada loo wado iyo cid walbaa marto maanta dhan miinuu ku abuuraya. waxay ku tusaysaa wax arxana iyo wax naxariisa inuusan u hayn. wuxuu ka shaqaynayaa maanta oo dhan inuu lacag baad ah ka qaado qof waxhaysto iyo qof aan waxhaysanba. dadaa silsilado ku xirxiran oo goobaha cadowga uu joogo silsilado loogu xiraa oo guryahoodii laga yaabo inaanan dab lagu shidan si ay u bixiyaan ganaax la ganaax. taa marka waxay ku tusaysaa qofka haddiiba uu heli karo asagaa gurigiisa ku biilan laha. taa waxay ku tusaysaa inaanan cadowgaasi wax arxana iyo wax naxariisa iyo wax yacni qofka bani aadamku iska nool xataa qofka cadowga ahaa xataa intaas laga helaa. taa marka kuwaan wax lagu tilmaamo oo yacni kelimo walboo lagu tilmaamo iyadaa ka ashaadanayso. marka waxaan rabnaa cadowgaasi in deegaanada Soomaaliyeed oo dhan laga xoreeyo. shacabka Soomaaliyeed guud ahaan say u istaageen waa ku mahadsan yihiin, gaar ahaan reer Galmudug waa ku mahadsan yihiin madaxweyne Qoorqoor iyo maamulkiisa sida ay u soo abaabuleen oo ay in cadowgaas la iska kiciyo ay ay ugu soo diyaar garoobeen si ay u garab istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo gobolada dalka oo dhan ka wada in cadowgan laga sifeeyo. nimankaasi luqad aan maartaas ahayn oo ay yaqaanaan ma laha. wax allaal wixii luuqad bani aadan lagula hadlo way soo gebagabooween. maartaas bisay yaqaaniin. waxaan codsanaynaa qof walba oo Soomaaliyeed oo heli karo inuu nimankaasi maar ku dhufto oo toorey la dhaco oo ilaah hadduu ku idmaayo wax allaal wuxuu haysto uu la dhaco heli karo inuu ku dhufto goob walba uu joogo. waxaan kaloon codsanaynaa waayeelada, haweenka Soomaaliyeed, dhammaan odayaasha, qof walba oo wiil uga jiro shabaab inuu wiilkiisa u yeerto. qof walba ay gabari uga jirto dhinacaas inay u yeerato. waxaa hadda halkaa yaalo meedad dad Soomaaliyeed ahaa oo inta fikirkoodii la rogay oo caqligoodii la rogay oo bani aadamnimada laga saaray oo hooyooyinkoodii aabbayaashooda iyagoo gumaadaya halkan lagu laayo. waxaan rabnaa waayeel walba iyo hooyo walba iyo qof walba inuu waxaas xal uu u soo helo oo ilmihiisa kala soo baxo. meedadkaas waran subax walbo waxawaaye waa ugu yaraan waa meed oo qof Soomaaliyeed ay u badan yihiin. dad ajaaniba waa ku jiraan oo haddaba mid haddaan halkan ku soo aragnay ajnabi ah. laakiin dadka Soomaaliyeed waayeel iyo dhalinyaro iyo qof walba oo nimankaas ku dhex jiro inuu ka soo baxo. waxaan kaloon codsanaynaa
hantida baadda ay nimankaan la siinaya in laga joojiyo qof walba oo Soomaaliyeed waxaa jirto deegaan ah inaad baad ku bixiso aadan ku qasbaneen oo kuu dhow nimankaa dhulka loo soo baneeyo si ay isku arkaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo qoryaha qaatay iyo iyaga si ay isku arkaan meel ay ku gabadaan hawaayaan ha looga soo tago deegaanadan way xoroobi doonaan dhammaantoodana waa lagu laaban doonaa laakiin si aad maaragtaa ugu noolaato mudul inaad maaragtaa wixii hanti ah oo dadka Soomaaliyeed lagu qarxin lahaa aad u bixiso sax ma aada u mahadsantiin mudane madaxweyne waa kaaga mahad celinaynaa inaad maaragtaa ragga juhdiga intaa la eg bixiyey oo ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaankooda iskaashaday ah inaad maaragtaa halkaan nala timaado oo nala joogto waa kaaga mahad celinaynaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan saraakiil xigeenadii meeshaan ku mitiday inaanan ceelkan aanan maaragtaa dadka Soomaaliyeed laga qarxin laga gubin oo ku mitiday aadan ugu mahad celinayna waxaan kaloo rabnaa inaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga barino caafimaad saraakiishii askartii ku shahiiday inta maaragtaa gulufkan dalka looga xoreynayo cadowga socotay intii shahiiday Ilaahay shahaadadooda ha ka aqbalo inta dhaawacantayna Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u boogdayo adinkana aad u mahadsantihiin guud ahaan maaragtaa dadka deegaanka reer Galmudugna xaqiiqdii waa u mahadinaynaa meel walba ay joogaan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed bay garab taagan yihiin wax allaal waxay karaan la garab taagan yihiin under your leadership waa kaaga mahad celinaynaa salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh